بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan jecelahay inaan hal qodob ka taabto issue taagan maalmahan oo ku saabsan caburin xarig iyo suxufiyiin la baacsanayo ayaan jecelahay inaan laba eray ka idhaahdo ay waajib tahay inaan ka idhaahdo waayo ilaahay dulmiga ma jecla sidaa daraaddeed waxaan jecelahay oo aad dareenkayga iyo emotionkayga wax ugu bedelay habeen dhaweyd muuqaal la baahiyo ku saabsanaa MMTV iyo weriye andaro askar dhirbaaxayo oo maad aragtay wax aan ma garanaysaa laga xishoodo runtii qof intaan la garaacay la iska dhirbaaxay intiisi la boobay haddana ku yaraan la iska soo daayay imka andar inta la iska xiray oo la iska dhirbaaxay haddana la iska soo daayay marka waxyaabahaasi waa dulmiga aan maalmaha horena qoraal kaga hadlayo qof kasta maalinta qiyaamo ayuu ilaahay kala xisaabtamaya arrimahaas dhacaya askarigaa isagu isku moodayo inuu maad aragtay waajibaadkiisii gudanayo qofka cadaalad darrada iyo xaq darrada ku dhirbaaxay ummadduba ay daawatay waxyaabaha cuquubooyinku ka dhacaan yaa ayay ka mid tahay runtii cuquubooyinku waxyaabaha ay ka dhacaan marka maalin walba waynu arkaynaa askarteena iyo dadka ama saraakiisha ama dadka madaxda inoo haya xilalka haya caafimaad bay ku wada dhakhtarada dibadda hindiya loo qaaday ingiriisku la geeyey turkiga la geeya yaa mid madaxa oo aan garanayn khuluqul xasan ti uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam nagula dardaarmay waayo dhaqanka islaamku waa khuluqul xasan marka haddaad dabeecadaadu ay dabeecadii islaamka way kaan weydo oo dadka iskaga xadgudubto oo iska dhirbaaxdo oo ashaar dowladeed dee magac iyo title iyo awood maalinta ilaahay ku siiyey oo mansab iyo maamuus ugu siiyey aad dadka ummadda maatida ah aad xukumayso ama ilaahay madaxda kaaga dhigay ee mas-uulkii kugu eegayo aad sidaa doonto ugu takrifasho wallaahi bilaahi tallaahi ilaahay wallaahi uu kaala xisaabtamayayo maalin ay qadhaadhahay oo ay waxa weeyaan dhirbaaxadaasi kugu noqon doonto aad qofka mas-uulka aad ka tahay aad dhirbaaxaysa ay kugu tahay xaalad adag oo kale ayaa wallaahi iman doonta marka dhibaatooyinka ay suxufiyiintu maraan anigu in badan baa suxufi soo ahaayo waan garanayaa waxyaabaha ugu badan ee iminka soo kordhay waxaa ka mid ah berigii hore saxaafadaaba aada u kibri jirtay oo inta badan aqoon-la-aan baa noo geen jirtay aniga horta weligii layma xidhin askarina iskamanaan horiman laakiin in badan oo suxufiyiinta ka mida mararka dhaar dee waan u garaabi jira oo bini-aadan weyaan dee suxuf u khaldami karaa laakiin suxufiyiintii khaldami jirtay imika iyagiiba dowladda iska eegay maalin walba suxufi baa lagu khaldamaya suxufi caadiga lagu khaldamay haddaan lagu khaldamin qofka maxaa intaa dhirbaaxo laad gaadhiga lagu saaro hadhowna laysaga soo daayo oo loo leeya orada iska tag taasi ilaah baan ku dhaarshay ma wax qof biniaadana qabataba waad dhirbaaxday waad garaacday saa doontaad iga yeeshay waxaasoo dhan ku mutaystay itusoo taabsay ummaddana u bandhig weliba anigoo qurahay sheegin ummaddaa ilaahay la wadaago arkaysay waxaad igu samaysay waxaad tidhaahdaa waka sababtaasaan ku dhirbaaxay sababtaasaan usoo xiray sababtaasaan kusoo qabtay markii dambe haddaad iska cafiday ood leedahay anigaaba dar ilaahay isaga cafiyeyba mas-uuliyadda waa xaq aan leeyahay haddaan madaxdii ahay inaan qofka waajibkiisa marin karo iskana cafiyi karo waa runtaa laakiin haddaad iska cafiday dee laftarkeedana ummadda u sheegtay waayo ummaddaa garsoora ilaahay ka soko ummaddaa idinka arkaysa oo idinkala xukuminaysa ma habaar baad doonaysaa maalin walba adigoo madaxa in dee lagu habaaro
تعيشها هو إسلام وحتى وحالة داودسي يضد gaboobay oo ay habaarkoodii ducadeed bardhacay inta waxa arkaan umada saal ugu tumanay lagu daalay inuu habaar ku dhaco miya ka baqay waxaan sheegay in dadka madaxda ah ee dadka iska deesay doonaan kiiriyo dirbaaxay ee soo xiray ee iska soo deynay haddana soo xiray haddana iska soo deynay waxaas wallahi billahi tallahi maalin baad dambaysa wala moogan yahay maalin baad dambaysa wallahi waxa la iskaga tagay يا وكيل رسولك صلى الله عليه وسلم أصحابتي سيقول لتشوغا أتدرون ما المفلس قالوا بلى يا رسول الله رسولك ودي أصحابي سكون مفلس كما قرنا سام وسينا هذا ما يعبر الله شاء رسول الله ها بي لهذين ها أي لهذين وان قرنا هو كوا في هواك ذهب $1 دينار تونان سنة دعالو بي أحبط شلنا عندي ما هبل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نكاس واشق يستبوش وعبادي سني صفقه رجلي مساجك وتكني إلهي وعبودي لكن بدن بسمين نكاس قارب حق درة وحقوق يستي مدو حقتي مدو نبر بكل نفطي مدو حبويالي مدو عاي تتكات الدم لصين يا دنوتيسي يا أتركيسي تتكا إلهي والله قيبنا qofkii caadiga ahaa weeyaan qofka sida la sheegay balkoorkii mas'uulka ahaana ilaahay ku leeyahay mas'uulka ummadda looga dhigay ee taliye ciidan ahaa ama wasiir ahaa ama madaxweyne ahaa ama balkoor aad ayaan arrinkaas uga xumahay ku dhacay wariyaha maxamed andar ayaan daawanay sidoo kale waxaan aad uga xumahay xariga لو لك عوريا شكلها يقول حرن منك اللي كم هاي وأنا ليا بحتى من اللي محكمة بالتربية اللي التربية عندك واقعني إذا من بالتربية أو كلياتا أو كلا قرقا ضد ومحكمة إذا مضى لصارة أي حيد وانقرم ويقورتو اللي عيدا نغضي المركة حق دروين كالعيبة كميتاي حق الروينكا لعينا هدان لغا توبت كينين وإلهي معذرتي توبت لو يديسن ولو توبت كينين وبلا آذنكا إلهي حكوميا أنا عفس ويديسن وحكوا وين بردعي وحيابها دعي معذرتي الصبون لموضو ودرنتاهي السعر بركو كوهيغو وعلى شوك سملا أي كمديهين waxyaabahaas ka mid ah xaqdarooyinkaas iyo waxa dhacay marka waxaan aad jecelahay inaan aad baan uga xumahay aan arrinka uga murugoonaya wariyaashii ku dhacaya waxaan ognahay wariyaal maadaragtay dalka uga cararay arrimahaas dabadeetana adaawadii lagu beeray iyo dhacdooyinka ay kala kulmeen Hargeysa iyo dalkooda dhexdooda inta dalka uga carareen dalka laftirkiisa cadow ku soo noqday cadowgana waa laga dhigay Soomaalida waxa ku maahmaahda ragciil cadaab ka dooray Soomaalida ku maahmaahda ya ragciil cadaab ka dooray rag lama ciilo qof kaliyata oo aad ciisho hada waxa maslaxadiisa ayuu ilaawaya maxaa isaga dan ugu jirta ayuu ilaawaya رجل الله معيله يا مركا دتك مالو والبا لا اسكو سي بدنايو waxyaabaha imika dhacay oo dhan marka la isu keeno dad la ciilay oo ama ma daragtay lagu oranayo lagu tacaadiyo oo lagu sameynayo waxyaabo aan gar iyo waqtoon lahayn inta la iska xiriir la iska sii deynayo arrimaha qaar looga jawaabo inuu dadka communication kii baa lumay waxa ka sidoo kale meesha ka baxay dadkii madaxda ahaa dadkii khuluqul hasan ka yaqaanay dhaqankii islaamku lahaa khuluqul hasan dabeecadda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ayaa si gabaabsiya meesha ka sii baxay marka cid walba laga dhigaya ma aragtay xil loo dhiibay xil loo magacaabay
marka aad iyo aad ayaan arrinkaas u cambaareynayna uga xunnahay uga murugoonaynaa runtii ku dhacay nimanka wariyayaasha ah waxaanan jecelahay inaan dowladda iyo cid kasta oo arrimahaas khuseeyaan baan u soo jeediyaan ugu nasteexeeyo ilaahay ha laga baqo subxaanahu watacaala oo dadkaas sida maad aragtay xukumaysaan ilaahay maalin aan maanta ahayn buu idin weydiinayaa si cadaaladana u xukuma xaqdaradana ka daaya oo shacabka ilaahay uu idinku eegayaa shacabka ilaahay yaa xukumaysaan xataa hadday gafaan waa bini-aadan oo dadkaa xukumayseen aayar uga caqli celiya wallaahi kuma hagaagayaan wallaahi dhirbaaxo iyo xabsi wallaahi dadku kuma hagaagayaan ninka isla waxaase lagu edibsamayaa lagu hagaagayaa qofku tubta toosan ku qabsanayaa هذا والله واحد عايز رجع العذاب كدورية واحد نقص عند بحد دون ضد واحد فلان يسام بوحكه أي نقص عند بحد ضد كهكو كل فينا واحد أنا يجين ما أنا قولي قلت كهمين أما أنا سمين هكو كل فينا قف كستو الله ما الله اسكحله جبنوه الروجية مركز والكي رجل يسال حدد اسكحلي سنو بلا آدم ويانو ما هري حيوان maaha maskaxdiisana waa shaqaynaysaa inta uu xabsiga ku dhex jiro maskaxdiisa waxa sida mashiinka uga guuxaya ay si u wareejinaysaa waxa soo ciila iyo aramiya buusaa ayaa saa u hor imanayo oo iyo waxa uu halkan ku joogo buu garan waayaa qofka dambiga galay waliga ma ciishoodo dambi buu galay fahuu kula jiray hadii la doono wala soo qabtay ma ciishoonayo wali binay wuxuu soo yahay in waxaan dambi qof aan dambi bakelin والله حري لا درباحي حتى إذا دتك بروتوكول بالله قبتها وركالي والحرام تاي فول قارجة أنت هسه كرياته طلابها قال نلقى جيستك هذا البعض يقف باب واتها وحاجة لا يقع لا ما كودرش كان كلام بلا ونرجع وطنك كلاله وأد مدحتها أو مدحني هذا وقال أنت الآن كنت ما تدرب حس كلا نعم ولقي ما أرق مال قرع عارض اللي سكوك حيني لو وضم المرة ولقي والله ما أرق مال قرع عارض اللي سكوك حيني تكون نظام بروتوكول باللي وفتيدية ويريها وقف دم بيسكوك أيوم بديدة عسكري راع عسكري ما تحطوا يقولوا إن مري ولا جوبه هي هو دم بجالسات قشة دي وين تجي هدان دم بيسكوين محل برش لنا يا يلا على عرري دم بيبقى مع السلامة قف أنت بيسكوين أي الله يمنا يا درباح حالك يسكويني خسر القصار يا قاري ما قصدي لسلي دتكو كم أركان ميانا dadkani ogeyn dadka hadaan arkayn in ilaahay arkay ma ahan ilaahay ka weynaa dadkan ee makhluuqa ahaa ee qofkan abuurtay miyaana dadku ka baqayn jeelasha dhexdooda waxa lagu sameeyo iyo waxa umada dhexdeeda lagu sameeyo ee aan kamaraduhu hayn ee madaxdu maalin walba ku kacayso haday handidaad tahay haday gacan ka tahay haday waxa tahay wallahi dadku hadaan arkayn ilaahay baa arkay ilaahay baan idinka jaray ilaahay laga yaab subhanahu wa ta'ala arrinkaas baan ka hadlayaa maanta. Assalaamu calaykum.